haddii oo anagii oo jabkii wadnay ujeedadeeda dhan waxay noqotay beryahan dambe waxba yuusan dhaqaaqin waxba yuusan kaa dhaqaaqin warba sidaan sheegay quraan ma arkan berita ayaa la bedeli karaa fadlan ra'yi oo aad u fiican galabtaa meeshaan isugu imaanin nin walba ra'yi wanaagsan oo dokumentigaan lagu wanaajin lahay noo keenay بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa magacayga waa Jibriil Maxamed. waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed dadka magaalada degan. hawshaan inaan isugu nimaadno oo aan galabta ka wada hadlo dastuurka Soomaaliya iyada oo lala maagan yahay dadkii gacanka geystaan ka mid ahaa sababtana waxay ahayd afkaarteeda la qolo oo haddii aan maqnaano cid walba ay waxay rabtay inta sheegata dhaqanka Soomaaliya la ogolaa wax munaasab ma aha marka in waxaan rabaa aan dhowr arrimood ka hadlo oo ku saabsan dastuurka arrinta koowaad oo rabaa inaan ka hadlo oo dastuurka ku saabsan waxay tahay aslan dastuurkan ma aha dastuur ay Soomaali qortay sababta waxay tahay haddii Soomaaliya qortay wuxuu ahaan lahaa dastuur afka Soomaaliga oo ku qoran dadka Soomaalidu u fahmi karaan hadda kan Ingiriisiga waa fahmi karaan kan Soomaaliga waa fahmi karaan qofkii haysta nuqulka Soomaaliga ah wuxuu tegi karaa qodobka 29aad waxaa ku yaala number 29 wuxuu leeyahay xiriirada shaqada qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu helo xiriiro shaqo oo caadil ah Soomaali baa nahay maanta maxaad ka garateen qodobkaas waxbaad xaq u leedahay waxaad xaq u leedahay markaa qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu helo xiriiro shaqo oo caadil ah maxaa loola jeedaa waka meel kale wax laga keenay oo annaga aan naga soo fulin inuu yahay caddaynteedii wada arrinta labaad oo qodobka labaad oo raba inaan aado waa qodobka 10aad iyo qodobka 12aad oo ku saabsan jinsiyadda qodobka 10aad wuxuu leeyahay jinsiyadda Soomaaliyeed waxaa lagu heli karaa dhalasho ama Soomaaliyeed waa naturalization qodobka 12aad wuxuu leeyahay qofka 5 sano oo taxane ah si sharci ah Soomaaliya u deganaa buuxiyeyna shuruudaha sharciga jinsiyadda xaq ayuu u leeyahay inuu dalbado Soomaaliyeed waa la sii waday markaas si fiican u ka fadhiista shardiga 5 sano ee uu qofku xaq ugu yeelanayo in lagu Soomaaliyeeyo guur ama deganaansho kuma xirna inuu buuxiyey ka hor ama kadib taariikhda dhaqangalka dastuurka arrintaas waxay Soomaali ka dhigaysaa ciidamada amisom maxamed jooga dhammaantood sababtoo ah 5 sano ka badan ay sharci ku joogayaan arrintaas waxay ka dhigaysaa muwaadin Soomaaliyeed macnaha ka hor iyo kadib intuu doono ha joogo oo meesha ku qoran sharciga ku joogo sharciga ku joogaan waxa ay muwaadin ka dhigaysaa mahiiga iyo ragga lamidka ah oo Soomaaliya ka shaqaysanayay 20 sano ay ku sanay marka ma aha wax sahlan ma waa ka soo koob dalalkan dariska ciidamada Kenya oo hadda 4 kun oo soo galaya kulligood muwaadin bay noqonayaan marka 5 sano laga sababta waxaa laga soo bilaabayaa taariikhda ay dhulka soo galeen cidii kale Soomaaliya ku soo gashay qaab aan tuuga ahayn saasoo kale ay muwaadin noqonaysa Soomaaliya waa marka ma aha arrin ayada munaasab qodobka afariitanaad iyo qodobada hore oo jinsiyadda qofka ajnabiga uu siduu Soomaali ku noqon karaa way iskhilaafsan yihiin marna waxaa la siinayaa baarlamaanka awoodda samaynta sharci lagu noqdo Soomaali marna waa la qeexayaa waxaa la leeyahay 5 sano waa inuu joogo qodobka afariitanaad farqadiisa A waxaa ku qoran ama C Ingiriis bay ku qoreen xataa inaan Soomaali qorin waxaad ku garanaysaa A B C waa baata jarxa ma marka
farqada waxaa ku qoran sida qof shisheeye ku heli karo jinsi waxaa ku qoran qodobka 14aad sharci u dejinta muwaadinimada qodobna waaye baarlamaanka ayaa soo saari kara sharci habeeya markaad sii tagto sida qof shisheeye ku heli karo jinsiyad Soomaaliyeed marka haddii baarlamaanka la siiyo awooddaas haddana maxaa loo kala reebayaa oo loo sii qeexaya oo wax dhacay waa arrin meesha ku jirta صدري كواد حوجا واحد مودا شو اللي معي اللي بيجي بقولكاس العلاقة في ريا حولية هاي وصدري كواد هنتيجه كسابسين حولية هاي دولة واقعية ولا دولة وهي سخصبة هنتي كل وريق تامرك أي شيء تدن معناها دولة حب هنتي قاعد كل وريق وأرين كلام مركز حولية وإلها مقدور عادلة أو لقوه شيء محكمات وح واقعية لكن وح لقاه سوا ما وح صح قلب كصدري تطبع وكاس هذا جفوجين وحولية دم كاس مالها وح سر قرار أما وفريدom of information وهو وحقه حق جليدة مركز وحاجة تويست ماشاس وحال يلي برلمان وأنا صوص على شرعي لقول الكلمة حقوقا معنا قف كستا وحق لي إنه الحق ده الدولة وهيسو لما كان فيه وعلي قف كستا وحق لي هاي اللي تاك الحق ده عد كلا هيسو ولو بعني هاي اللي بقول يا لو بقول عليه حق كستا والدولة وليه وعلي البرلمان وأنا صوص على شرعي لقول الكلمة حقوقا سبع عمر جيس مركز حديث وسنجرين شرع نوع عاصة هي أداة الدولة وأنا ينقضان هو اللي الفران هذا دولة وهي مثلا هو اللي الفران حكتا لوجا باهي هاي أنت سورجال أنت حكتا لوجا باهي أنت سورجال مركا default وحاجة لي إن هي أدوار الدولة هي محسبتها هي وحول الباء وأشد يلا إني صوبنا معناها ما أصير كذا هذا الظروف اجتماع ودي وسنبارة ما بشرح باس كرينه وسلاسة حال بهانسة الدستور كان محاربنا إن صوماليا أي كو أيضا وأي كنولات وكو ونعكسات وكو برات لكن وحابيها لا قدر كافتني سجالات هذا تكتب أوكي أفتني أوكي وحواي عطوا بشنات قدر كافتني سجالات وعليه هاي وحكام ليا صدريكو اوكي هنتي لو وايد صدريكو وحنا عندي سؤالين ما كاسم كل وريقي وايد وحاجه جرى mid kale oo ka hadlaayo hantida la kala haysto iyo wax la mid waan si sax ah u xaynaa asaga laftiisa si khariban ana dadkiisa haysto oo jiran oo وكا إنا نهاي وعديني أمريكا محاد دستور يحل الإنسان لقاري لو قد دقيقة وحنا رامي دوم دوم بيسوا ربنا كاملو قدر ككونتوني تدوال هي كونتوني استعداد أو بوجا لواتني تدوال كسوماليا وكان لي أجرد روده هي هرم كدولنا وألوان دعوة سوماليا إلا كلا جوجو مرة سوماليا إلا وحي مرة سوماليا سيدي شنكي مرة كلا جوجي سكفوا إن لوكال جوي وماشي كوعد إلا وحلية دول القبلات أصلا وإن يكون داشة سيريا معها حسب معها وحكة الصواعا وواجبات ودولة الفدرال وأي بلادها معها وإن يكون داشة حرير إسكاشي كل سنة لا يرى حكومة لها يسكحر بيهين يكون حيران كلام حكومة دول قوانين إلى لسا حدودها أول ديدا يا أولاد كوكلا وأنا يدرك الساحرين صاحب إنه هي يشان حكومة لها كجرا ملها كلا يدمك إيو تدوينه معناها وحالقات اللي دلالك وكلا لها تدوينه يواحد فضل كنت الاستعداد وفهم سنة ما يوقف يعني صلاة بني بس واي فضل كنت الاستعداد
oo ugu dambeeyaba wuxuu leeyahay iyadoo dareen iskaashi lagu shaqaynayo waa inay dowladda federaalka iyo ay dowlad goboleedyada kala tashataa wada xaajoodiyada la xiriira kaalmada dibadda ganacsiga marka technically waxaan ma aha dastuur inaysan Soomaaliya helin dowlad matasha Soomaaliya waxa ka maqan maaha maamul goboleed magaalada la dhaho way yartahay ama ma jirto maanta magaalada Soomaaliya waa gudoomiyad ma lahayn ama gudoomiye magaalo lahayn adoor baa shabaab macnaha meel kasta waxay leedahay maamul yar oo meeshiisa ka jira waxa dalka ka maqan qarannimadii marka qarannimadii in la sii fogeeyo dadka lagu sii laga shaqeynaya waxaana ma aha dastuur Soomaaliyeed dastuurka wax hormadeena iyo respectigeena mutaysta waa inuu noqon karo dastuurkan ama documentigan aan hayana ma aha document ama Soomaali ka soo fulay oo Soomaali diyaarisay ama Soomaali intumo oo Soomaali qaaday السلام عليكم جبريل أبو مسيحي حالها يا فكركيس عبدوليتي هرتا حالير أيام كلها يا إنت أنا مقبل قد بدأ ماشى مقارن دستورك شق الدجيل توحى إسكالي معرفة البرلمان كاس كهذا المال ميرا قال قد دستور واحد كستم قاعد كرو شيء كستو عن كل بين ودولة هاي معرفة البرلمان كي شرعي كسوت الجنان مقصد أذكرت هديسا قد بدأ قال قد واجب تا دستور كا خلطات وقود الجيران قد إسكالي معاي واجران لكن Soomaaliya labaatan iyo sano lagu jiraa labaatan laba sano noo socda wixii la keenay qashinka daadina approach-kaas waa laga fiican yahay mid kale waxaa dhihi lahay maxaa lahayaa haddii ay runtii meeshaan sidaan u sheegay waxaan u joognaa maanta ra'yi ururin fadlan ra'yi fikirkaaga sidii Jibriil oo kale wax alla wixii ay isleedahay oo meeshaan halka uu qaldaynay ayaa u baahanahay inaan abuurino laakiin mid walba hadduu soo boodo yiraahdo kali Soomaali ma aha walaalow gurigaaga haddii aad nadiifsan karin waa lagu nadiifinaa marka waxaad gurigaaga ma nadiifsan kartid booyaaniga dadna ma rabo inaan u jawaabo laakiin waxaan idiin sheegaya kulligeena lacaga abuurinay qabiiladeena u dirnay inaan isdhameen inkiri karba kulligeena madaxweyne goboleed waa soo dhaweeyay hadda madaxweyne goboleed ma jiro haddaan hadda dhahno annagaa been isu sheegay hadda haddii video inta maxay kulligeena inta anaga ku wada jirno oo madaxweyne goboleed u sacbinayna ayaa la arkila ma baahni mid kale reality-ga wuxuu yahay been yaan isu sheegay Somaliland way jirtaa Puntland way jirtaa marka aqli ayaa loo baahanyahay saalle ma loo kala joogi kara sidee la isu soo dhaweyn lahaa inaan ka hadalno laakiin haddaan nidhaahno war Soomaali waa la kala qeybinaya Soomaali ilaa iskala qeybis nin kala qeybinaya ma dastuurkana ma kala qeybinaya yaa kala hadla sheekhaas wuxuu leeyahay salaada la gaaray salaada casir ma la gaaray waxay baahanay soo ma cabdulhab gabadhaasaan sii lahay suga cabdulhab أنا اليوم سؤال حقيقي يمكن أني محلل كذا بعد شهر. والله كمان هذا الشيء كمان هذا الشيء هل مرة كمان هذا الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنتهين أنا قاعد أقول بدل ما يستوى كنت الصومالي وأقرأ كتاب معنا. دستور كان هديل ربو إن مجالنا كل بعض ضد السوق كانوا كرأي سلسلة سحرة وعلى الوجود وقت لما تشرنا اللي بدل هي وقت يلا طبعا لها شلك بحالي 8 to 5 أم 9 to 5 بقولنا يسا الوقت جا دستور كمان تمشي على كينا يو إسلامك كيف ولا تدري كسبت كسكتشو بيلين سكول لين أنا كهذا أنا صفر بيو يمسامي حسب كسكلاس أنا بقول ده وحاول أرد الدستور كان إن لقاها بالرجالة أنت ما كان ست عن ضدك وشرحان أنا فهمان لو قمت الكلام دستور ولا هيصنع كي 1960 ما هيصنع كاسم كل قلنا وده كانت مريم كنا والله هاي دستور كسلوه بدل وحاول نسمع يعمل من نسمع يعمل بدلوا مركا دستور هذا وحي اللي إيش كينا وحياة وحنا كبر نوعات ده ماشي بسوق كوب كريم كبريين والله
وبالله